بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Yaanle Ismaaciil Axmed oo ka tirsan hawlwadeennada xafiiska Hantijira Consulting. waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa barnaamij ka warramaya ama ka warbixinaya dariiq xariiqashada iyo waxa ay tahay. barnaamijkan waxaan ugu talagalnay bulshada inaanu uga warbixino ama u soo gudbino muhiimadda ama doorka ay ku leedahay istiraatiijiyadu ama inaad leedahay dariiq xariiqasho cad. barnaamijkan wuxuu noqon doonaa 5 qaybood. qaybta koowaad waxaan kaga warrami doonaa history-gii ama meeshii ugu horeysay uu ka yimi ereyga istiraatiijiyad iyo cidda isticmaashay. qodobka labaad wuxuu noqon doonaa waa maxay istiraatiijiyad ama dariiq xariiqasho. qodobka saddexaad wuxuu noqon doonaa sabab ma ayaynu ugu baahannahay inaynu lahaano dariiq xariiqasho. qaybta labaad oo inoo noqon doonta xalqadda labaad ee barnaamijkeena waxaanu kaga warrami doonaa qaybaha ay leedahay istiraatiijiyadu. maxay ka kooban tahay, imisa loo kala qaadaa in istiraatiijiyadu leedahay. qodobka labaad wuxuu noqon doonaa habmaamulka istiraatiijiyadda ama waxa loo yaqaano strategy management. qodobka saddexaad wuxuu noqon doonaa maraaxisha ay marto istiraatiijiyad, habmaamulka istiraatiijiyadda ee wanaagsan. qaybta saddexaad ee barnaamijkeena noqon doonta xalqadda saddexaad waxaanu kaga hadli doonaa furayaasha ama waxyaalaha kuu sahlaya inaad lahaato dariiq xariiqasho cad oo habmaamulkeedu dhisan yahay. qodobka labaad wuxuu noqon doonaa istiraatiijiyadda qofeed. qodobka saddexaad wuxuu noqon doonaa dabeecadaha ama astaamaha uu leeyahay istiraatiijiyadda shakhsiyadeed ee wanaagsan. qaybta afraad ee barnaamijkeena waxaanu kaga warrami doonaa waxa loo yaqaano organizational strategy iyo qodobka labaad oo noqonaya sida loo horumariyo. qaybta shanaad oo aynu insha Allah barnaamijkeena kusoo gabagabayn doono xalqadiisa shanaada waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa islaamka iyo qorshaha iyo wixii quraanka iyo sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam kaga soo aruuray ee istiraatiijiyadda ama inaad dariiq xariiqasho cad leh qof hadaf la tahay ay ka yiraahdeen. haddii aan u gudo galo xalqadeenan maanta waxaanu kaga warrami doonaa 3 qodob sidan hore idinku soo sheegay. qodobka koowaad waxa weeye halkii ugu horeysay laga soo guuriyay ereyga strategy ama waxa loo yaqaan dariiq xariiqashada. ereyga strategy horta waa erey Greek ah oo Greek hore isticmaali jiray oo markii hore ahaa strategos, markii dambe strategia, haddana dadka ku xeeltiga istiraatiijiyadda ay u yaqaanaan strategy. ereyga strategos waa erey 2 kelmadood ka kooban oo la isu keenay. stratos oo ah ciidan iyo agos oo ah leader ama hogaamiye waxa loo yaqaano. marka wuxuu noqonayaa hogaamiye ciidan. ereyga strategy marka la joogo strategos oo la macneeyay waxay ku macneeyeen sida si xirfadaysan ciidan looga raro goob oo loogu raro goob kale. waxa sidaas la mid ah modern business-ka maanta jooga oo ah waxa ugu dambeeya ama natiijada ugu dambeysay la raadiyahay kharashka ugu yar iyo faa'iidada ugu badan. haddii aan u gudbo qodobkeena labaad maanta waxa weeye waa maxay istiraatiijiyad. istiraatiijiyadda waxa ku soo ururay macnayaal kala fara badan oo ninba dhinac ka eegay, laakiin inta mucda ugu leh ama qeexidii mucda ugu lahayd aanu idin soo gudbinaynaa waxa weeye inaad leedahay dariiq xariiqasho cad iyo hadaf iyo inaad taqaan halkaad u mari lahayd hadafkaagana garanayso. haddaan u tago qodobka saddexaad oo aan rabo inaan maanta xalqadeena kusoo gabagabeeyo wuxuu noqonayaa sabab maynu ugu baahanahay inaynu istiraatiijiyad yeelano ama maxay naga caawinaysaa inaan istiraatiijiyad leenahay. waxaan idinku soo koobi doonaa 5 qodob oo 5 qodob aan filayo in idinkaga filnaan doonaan inaad su-aashii aad isweydiinayseen ay ahayd maxay istiraatiijiyadda shirkaddeeda kusoo kordhinaysaa inay idinka caawin doonto. qodobka koowaad wuxuu noqonayaa istiraatiijiyaddu waxay kaa caawinaysaa inaad lahaato jiho iyo meel aad u socoto, garanaysana waxaad u socoto. isla qodobka istiraatiijiyaddu waxay kaa caawinaysaa inaad kala garanaysaa hawlahaaga si aad u kala horreysiinayso, prioritization-ka waxa la yiraahdo, oo aanad hawlahaagu isaga kaa dhex yaacin. qodobka labaad ee istiraatiijiyaddu kaa caawinaysaa waxa weeye inaad noqotaan adiga iyo hawlwadeennadaadu dad meel u wada socda oo hal track hal bas wada saaran. qodobka saddexaad isleeyahay
waana qodobka ugu muhiimsan oo waxay ka caawinaysaa istiraatiijiyaddu inaad go'aan qaadashadaadu noqoto mid fudud. Waxaan kuugu soo sheegay qodobka koowaad in aad jihana lahaanayso, hawlahaaguna si u kala horeeyaan ay kuu sheegayso istiraatiijiyaddu. Waxaa halkaa ka fududaanaysa fikradda ama wixii markaa soo kordha shirkadaada kusoo kordha ee la falanqeynayo in simply aad si yaroo fudud haddii ay yihiin halkaad u socotay wax kaa caawinaya aad ku dhaqaaqayso, haddii aanay ahayn oo wax focuski kaa leexinaya ay yihiin aad ka tegayso. qodobka afraad waxa weeye istiraatiijiyaddu waxay kaa caawinaysaa inaad taqaano meeshaad u arooreyso alignment waxa loo yaqaano. qodobka ugu dambeeya aan kusoo gabagabeynaya xalqadeenan maantana waxa weeye in istiraatiijiyaddu kaa caawinayso sidii aad message-kaaga ama xogta aad sida aad ugu gudbin lahayd bulshada qaybaheeda kale, oo ah in marka la ogaado inaad tahay qof jiha leh, hadaf cad leh, ay kaa caawinayso inaad si fudud dadkii isu fahantaan oo ayba kaa caawiyaan halkii adigu aad gaarsiin lahayd meel ka fog in iyagu gaarsiiyaan. haddii ilaahay idmo xalqadeenan maanta intaasay noogu ekaanaysaa. tan iyo intaynu xalqadda labaad ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.